subax walba ugmaduna tii hore waana isku egyihiin waa baryada iyo waayaha wuxuu ka soo tusaa guri bacyo iyo qoryo ka samaysan oo ku yaal duleedka magaalada Muqdisho wuxuu ka soo barkacay Shabeellaha Hoose wuxuu ku nagaaday halkan gelinkii hore maalintii waa qudaarle oo wuxuu iibiyaa dukaanka qudaarta hooyadii si nolosha qoyskiisa u maareeyo una soo saaro quutul-yoomkooda subaxda markaan soo kaco waxaan kaalmayaa hooyadii oo miis ku gado xaafadda intay iyadii adeeg ku maqan tahay miis ku sii fiirshaa kadib markay imaato aniga duurada camal saaxiibaday isku mid daaliya laakiin galabtii waxaan aadaa kubadda cagta si saaxiibaday kubadda oo la dheelo Ismaaciil oo xirfadle aad ugu wanaagsan kubadda cagta wuxuu soo maray heerar kala duwan waxa uu ku tababartaa oo uu ku halmeetaya garoon aan aad u diyaarsanayn oo ay isagii asxaabtiisa ka samaysteen xirada ay degan yihiin agta wuxuu hami badan u hayaa inuu heer ka gaaro kubadda cagta waxay uu suuro gashay naag joogto hay'ad xaafadda ka mid ah ayaa ciyaartooyaan rabaa oo halkaas aan geysto iigu dheesho sidaas darteed ciyaartooydii xaafadda oo isku dareysa arka anina sidaas darteed oo ka qayb qaadan inaan ka dhiilo meelaha si waxaanay wada ciyaareen waa la isku dhiibay warar ayuu ku jira markan ciyaariyaan kala marka 12aad ee kooxda kubadda cagta ee midnimo waa kan warajo wanaag afkor delinta ganaxa ahsan gool hadda waxa uu muuqda mid ka mid ah riyooyinkiisa oo ahayd inuu ku ciyaaro garoonka Banaadir Stadium wuxuu ka qayb galay tartanka loogu magac daray tartanka barakacayaasha waxaan ku aaminaa inaan heerka hadda taagana heer ka sare aan gaaro xulka Soomaaliya oo halgan xirfadda uu leeyahay Ismaaciil ayaa dhaxalsiisay inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan tartankaasi oo ay ka qayb galayeen 8 kooxood wuxuuna tartanka ka dhaliyay 3 gool oo aad u qurux badan Ismaaciil ayaa markaa la guddoonsiinayaa ciyaaryahanka ugu fiican tartanka ciyaaryahanka rajo wanaag ayuu ka tirsan yahay wuxuu markaasi la guddoonsiinayaa gudoomiyaha xiriirka Soomaalida kubadda cagta tanoo kalma fileen laakiin waxaan rajeynaa mustaqbalka tan mid ka dambe inaan tan mid ka fiican inaan gaaro Ismaaciil ayaa ka dhabeeyay mid ka mid ah riyooyinkiisa ugu waaweynaa oo ahayd inuu u ciyaaro qaranka Soomaaliya iyadoo hadafkiisana uu gaaray ugu dambeyn kadib markii uu matalay 17-jirada qaranka Soomaaliya tartankii bariga bartamaha Afrika ee lagu qabtay dalka Burundi iyadoo laacibkani uu dhowr kulan u ciyaaray tartankaasi waxaana xusad mudnayd in uu xidigani uu door weyn ka geystay ciyaartii ugu dambeysay finaalka Soomaaliya iyo Tanzania Sweden inkastoo xulka Soomaaliya lagu lagday 2 gool yebar wali baashi saga wata baashi wuxuu la ciyaaray إسماعيل ولي بعد بس إسماعيل ماي جاد runtii Ismaaciil markaan kaaga warramo ciyaaryahan ku nool kaamka barakacayaasha ee caasimada ka dhisan isla markaasna tii aad iyo aad u sarreysay muddo kooban oo nala joogin horumar weyn sameeyay waxaan filayaa mustaqbalka in Ismaaciil uu noqon doono ciyaaryahan macnaha runtii ushida shuclad ciyaartooyda ficiis ah oo dalka inay ku soo hirtaan kuwa kale ee barakacayaasha ah riyadu waxay noqon kartaa marka aad dadaal u gasho inaad xaqiijiso dad badan oo dunida magac iyo maamuus ka sameeyay waxay noloshooda ka soo bilaabeen meel hoose Ismaaciil wuxuu waqti walba halgan ugu jiraa xaqiijinta riyadiisa oo ah inuu noqdo laacib si weyn loo jecel yahay